السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة ku xiran channelkayga Dr. Sajiya kusoo dhawaada. waad ku mahadsan tahay soo booqashada channelkayga. fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka subscribe ii saar, muuqaalka inoo la garay. haddii aad ka mid tahay asxaabtii hore inala joogtayna muuqaalka ii la garay siina share garay. biidmillaahi kariim alla raali ka noqdo. maanta mawduucan wuxuu ku saabsan yahay haddii aan cuno 10 kilogram oo timir ah bil gudaheeda ma ka baxaya xaaladda ah biyo baxa degdega. haddaynu gudagalno maqaalkeena maanta, ragga qaar ayaa aaminsan isticmaalka timirta in ay kaga baxayaan marxaladda ah biyo baxa degdega ah iyo in ay ka helayaan awood xubnaha taranka ragga ay siiyaan timirta. haddaba timirtu waa cunto fiican, laakiin waxa aad sheegtay ma qabato xiriirna lama lahan si toos ah in ay u samayso awooddaasi kalmada ah ama suurtagalka ah in ay biibaxa degdega dib ay u rido ma lahan. timirtu waa cunto ka mid ah cuntooyinka jirka u fiican guud ahaan. teeda kale, awoodda kalmada cuntooyinka soo celiya hal cunto maahan. 10 kilogram oo timir ah aad cunto bil gudaheeda kama helaysid fitamiino kala duwan, laakiin timirta marka aad cunto cuntooyin kala duwan ama kala nuuc ah ayaad ka heli kartaa nafaqo kala duwan u wanaagsan waxtarka jirkaaga. cuntooyinkaasna waxaa ka mid ah 1 kalluunka, 2 hilibka, 3 basbaaska, 4 toonta, 5 saliidda saytuunka, 7 saliidda macsarada, 8 ukunta, 9 sanjabiisha iyo caanaha. haddaba cuntooyinka aan soo sheegay waxa ay ka mid yihiin cuntooyinka sare u qaada xubnaha taranka ee ragga. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkani. fadlan muuqaalka sii share garay, la garay.